Soomaaliya oo ah waddan ku yaala Geeska Afrika waxa uu soo maray safaraad u qaraar oo murugo badan kasoo ku asteysnaa dagaaladii sokeeye ee ku habsaday Soomaaliya. Dokumentarigan waxa uu falanqayn doonaa sababihii alkumay iyo adkeysiga dadka Soomaalida ee muddadii adkeyd. Si aan u fahanno dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya, waa in marka hore aan la fagurnaa taariikhda soo jireenka ah. Markii ay xornimada qaadatay 1960, Soomaaliya waxay wajahday xasilooni darro siyaasadeed, loolan qabiil iyo loolan awoodeed. Arrimahan ayaa gogol xaar u noqday khilaafka ummadda soo dhex galay dhammaadkii qarnigii 20aad ilaa ay waqti xaadirkan. dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya waxa uu qarxay 1991 kadib markii la afgeeyay Maxamed Siyaad Barre oo ah madaxweynihii xilligaa talada hayay. Maqnaanshaha awoodeed ee ka dhashay oo ay weelisay xurguf siyaasadeed iyo mid qowmi ayaa horseeday rabshado baahsan iyo kala daadsanaanta maamulka dhexe. Qaybo kala duwan oo mid kastaaba ku yirdamayay inuu talada dalka gacanta ku dhigo mar uu wax kastaba ku qaadatay ayaa qarankii geliyay fowdo iyo mashaqo daba dheeraatay oo aan la garanayn halka ay ku idlaan doonto. Markii ay colaaddu sii korortay waxaa dhibka ugu badan soo gaaray dadkii rayidka ah oo waxba galabsan. Dadka Soomaaliyeed waxaa soo food saartay dhibaatooyin aan la qiyaasi karin, waxaana ka mid ahaa barakaca, gaajada iyo lumitaanka baahiyaha aasaasiga oo noqday kuwo baxsan. Dadaalada caalamiga ah ee bini'aadantinimada ayaa la halgamayay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha baaxadda leh ee dadka dhibaataysan soo food saaray. Dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya waxaa lagu sifeeyaa inay u kala qaybsanaayeen kooxo badan oo mid walba uu leeyahay ajende iyo isbahaysi u gaar ah. Hogaamiye kooxoodyo, maleeshiya beelada iyo kooxaha jirka waxay ka sinaayeen badudhiga awood midaysa talaafaynta dalka si ka weecatay tubti ku habboon, waxayna ku dhaqaaqeen hurinta colaadaha iyo inay sii wadaan xasilooni darrada ka jirta dalka. Beesha caalamka oo garwaaqsanin degdeg loo soo celiyay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya ayaa soo farageliyay. Ergada nabad ilaalinta iyo ururada gargaarka bini'aadantinimo waxay si agar la'aan uga shaqeeyeen bixinta gargaarka, fududeynta wada hadalka iyo horumarinta dib u heshiisiinta kooxaha dagaalamaya iyo dhowridda ajendaha nabadda.